guushii saddexaad oo ay Puntland ka gaadhay ciidamadii Xasan Sheikh uu ku dhex beeray deegaanada Puntland ninkii Jimcaale jaamacad kar ahaa war weyn ayaa ka soo baxay xaggiisa salka wuxuu ku hayaa guusha iyo israaca deegaanada Puntland iyo maamulkaba Jimcaale muddo dheer ayay dowladda federaalka Soomaaliya dariiq walba u martay inay maamusho ciidan uu isagu hogaamiyo muddadii loo qabtay maleeshiyaadkii lagu dhex beeray deegaanada Puntland saacado yar ayaa ka harsanaa Jimcaale wuxuu aqbalay inuu dadkiisa dhinac ka raaco Jimcaale jaamacad kar wuxuu aqbalay Puntland inay tahay mid deegaanada Puntlandna aynan joogi karin ciidan aan maamulka ka amar qaadan warkaas oo faahfaahsan ayaan guda geli doonaa barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa muuqaalku markuu soo gaaro fiidowga like share si share garee ciidamada Xasan Sheikh waxaan la yaabay Soomaaliyeey dagaal kasto ay galaan hubka waa laga furtaa Puntland koob iyo konton gawaarida dagaalka ah ayay ka heshay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo markii hore ciidan BSF iyo danab isugu jira oo laga dhex abaabulay gudaha Puntland hubka iyo gaadiidkaasi loo qaybiyay waxa muuqata marka dagaal hadii la yiraahdo Xasan Sheikh mar walba uu ku jabo kuwii lahaa Puntland way saqiirtay maanta maxay ku jawaabi doonaan BSF danab oo wada socda ayagoo ku midaysan magaca Puntland madaxweynahooduna uu yahay Saciid Cabdullaahi Dani sidee xal loogu heli karaa qaabkee mar kale nacay Puntland iyo burburin Puntland waqti loo geli karaa gawaaridii gacanta Puntland ka baxsatay ee deegaanada dariska la ah Puntland u cararay ayagana waa la soo celinayaa qoriga Puntland lagu dhex wato wuxuu noqonayaa qoray garowe ka amar qaadanaya ee noqon maayo qoray Muqdisho looga taliyo sidaas waxa leh hoggaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta Puntland barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa kuguna soo gudbi doonaa 48 saac gudahood argagixisada shabaab waxa ay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ka furteen gawaari teknika ah oo baraha bulshada lagu soo bandhigay anigu waxaan kala garan waayay ciidanka Xasan Sheikh hubka ay wataan ma dheemishba mise waa kuwa ay ciyaalku ku ciyaaraan waxaan saas u leeyahay askar ka cararaysa markay argagixiso aragto oo aad maqlayso 300 askari ayaa waxa jibiyay 4 wiil oo argagixiso ah su'aalo badan baa dul hoganaya qof kasto Soomaaliyeed oo maqla jabkaasi Xasan Sheikh uma muuqdo ee waxa u muuqda guusha Puntland ay gaadhay waxaan bal isla eegi doonaa daqiiqadihii ugu dambeeyay iyo wararka kuwooda ugu xiisaha badan muuqaalkan waxaad ka daawanaysaa Facebook-gayga page-ka Balwaan Show waa page aad mar walba kala socon karto barnaamijyada aan soo gudbiyo sidoo kale baraha bulshada qaybta YouTube-ka journalada aad mar walba barnaamijyadeeda ka daawato ayaad kala jaan qaadi karaysaa dhammaantiin soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan ayaan u guda geli doonaa warka weyn ee dhinaca Puntland guushii saddexaad ayaan goordhow faahfaahin doonaa balse waxaan ku hormarayaa dowladda Mareykanka waxay si madax bannaan ula shaqaynaysaa maamulada Xasan Sheikh xorta ka ah ee aan Xasan Sheikh iyo Xamse ka amar qaadan sida Jubaland Puntland iyo Somaliland madaxweynayaasha maamulada Somaliland iyo Jubaland waxay ku sugan yihiin Nairobi waxay kulamo la qaadanayaan beesha caalamka iyadoo aysan jirin wasaarad ka tirsan dowladda dhexe oo la hoostagayo waad aragtay madaxweynihii Somaliland oo si caadi ah shirar Nairobi ugu haysta waad aragtay madaxweynihii Jubaland oo isaguna socdaalkii Nairobi ay xitaa saraakiishii Mareykanka iyo reer galbeedkuba ay ugu tageen hotelka uu ka degan yahay magaalada Nairobi taasi waxay ka dhigan tahay in si madax bannaan loola macaamilayo Puntland iyo Jubaland iyo Somaliland meesha waxa ku go'ay marka maamuladii Hirshabelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed waa inta uu Xasan Sheikh gacanta ku hayay ayagay go'aanka marka gacantooda ugu jiraa Puntland macaamilkeedii wadanaysa Jubaland la mid Somaliland la mid meesha marka Hirshabelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay u jihayso doonaan go'aankooda iyaga ayaa iskale madaxweynaha muddo dhaafka ku jooga filla Soomaaliya dastuurkii ummaddu ay heshiiska ku ahayd buu xoray mandate-ku markuu ka dhamaadana wuxuu yiri fillada ka bixin maayo sida darteed ma jirto darajo lagu ixtiraamo xilligan ilaahay baan ka baqaa runta rabbi ay ugu jecel madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud mandate-kiisu 15 May ku ekaa xushmad iyo karaamo madaxweyne wuxuu naga mudnaa wixii ka horreeyay 15 May 15 May wixii ka dambeeyay waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya
muwaadin reer muqdisho ah oo guri ka mida muqdisho degan filadu waxay sharaf leedahay markaad mandate haysato laakiin mandateku markuu kaa dhamaado filla Soomaaliya dhismaheeda waxba kama duwana saraha ku yaala magaalada muqdisho sharciga haddii laga tilaabsado filla Soomaaliya sar caadi ah iska noqonaysa oo la mid ah saraha ku yaala magaalada muqdisho in ciidan lagu dhex beero maamul goboleed qaab qarsoodi ah waa dambi qaran waaye dawladdu ciidamadeeda gobol kasto Soomaaliya kamida waa la geyn karaa laakiin qarsoodigu waa dambi qaran waaye qofka sameeyana dambiil qaran uu noqonaya maxaan ula jeedaa hub qarsoodi ah laga qariyay dawladda dhexe mas'uuliyiinta baarlamaanka iyo wasiirada laga qariyay maamulkii halka ka dhisnaa qofka geeyay ku beeray ilaan waxaan afkiisa kaynaa madaxweyne xasan sheekh ciidamada noo jooga oo aan biilayna muddo 8 bilood ka badan waraysi uu ku sheegay maqal iyo muuqaala ra'iisul wasaarihi baa fagaare ka yiri rasacidana hadduu doono ha qarxo waxba nagama gelin annagu 30 kun xitaa waa ka qoranaynaa marka su'aashu waxa ay tahay ciidan qaran lama qariye waa maxay waxa la daboolayay marka hubkan qarsoodiga ee qudbasirada ah ciidankan hoosta laga qorayay miyaysan ahayn dambi qaran waxaan rabnaa marka inaan runta isku sheegno qalad 100% min bilow ilaa dhamaad buu ahaa ciidan qarsoodi loo qoro dawladdu waxa wanaagsan waxay inay official noqdaan deegaanka uu ogaado baarlamaanku ay ogaadaan golaha wasiirada ay ogaadaan haddaba Puntland talaabooyin ayay qaaday waxay agta marisay ciidankii xasan sheekh muddo dheer uu ku faanayay sheegay wax ka badan 1 sano inuu mushaar siinayay isugu jiray BSF iyo danab waxay kala joogeen nugaal meel aan ka fogeyn Garowe iyo Boosaaso iyo Galkacyo Puntland 24 saac ayay laba xero ku soo afjartay waxaa la sugayay xeradii Jimcaale Jaamacad Takar oo in badan oo bulshada kamida ay ku tuumayaan ciidan fara badan gaadiid iyo inuu caasimada dadkiisu ay ka soo jeedaan Puntland waa mid ama reer qarnood ahaw ama reer Galkacyo ahaw ama reer Boosaaso ahaw ama reer Garowe ahaw midnimada iyo wadajirka Puntland waa mid dadka loogu sheekeeyaa waa Umar Maxamuud waa Ciise Ruush waxaas waa iska sheeka barelay haddii hoos la isugu yimaado Puntlandnimo Jimcaale wuxuu aqbalay inuu gacanta xasan sheekh soo baxo waxa uu sheegay in kaliya uu doonayo in xuquuqdii ciidankiisa uu lahaa halkooda looga sii wado intaba waxa lagu yiri waxa tahay qof reer Puntland amarkii madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waqtigii lagu jiray haddaadba go'aan qaadatay aad loo soo dhaweeyay waa guushii saddexaad marka xilligan wixii ka bilowda xasan sheekh maxamuud ciidan uu ka sheegan karo gudaha Puntland ma jiro midnimo toosa bilaabatay marka oo dhammaan qusaysa qof kasta oo deegaankaasi ka soo jeeda waata marka maamulka aan rabo inay Soomaali ku dayato waa maamulka noocaas ah dhammaantood hal far ka kooban haddaba Puntland arrintan Jimcaale Jaamacad Takar markay soo dhammaato waxaa ku xigi doona xakamaynta siyaasiyiinta wixii qoray watay waa laga soo gudbay waxa hadda loo gudageli doonaa kuwa aan qoryaha wadan ee siyaasiyiinta ah qofka aanan danaha deegaanka u adeegayn meeshuu ka bixi doonaa weliba waxaa dhici karta xitaa in la xirxiro siyaasiyiin isku moodi jiray inay yihiin libaxyo meel BSF agta la mariyay Jimcaale Jaamacad Takarna gacanta lagu hayo miskiin yaroo siyaasi oo xasan sheekh muqdisho ka soo diray xabsiga lagu iloobayaa waa la dhaqaaqay adiguna shacabka gaarsii ummadda guushan saddexaad u gudbi hadduu Allah idmana waxaan rajaynayaa maalmaha kale soo socda wacdana weyn ayaa soo socota waya ciidanka xasan sheekh maxamuud ee dawladda federaalka Soomaaliya nasiib darrada waxaan la yaabay dagaal kastay galaan hubka waa laga furtaa argagaxiso hadday noqoto hubka waa laga qaadanayaa oo waxaad arkaysaa saraakiil sare oo ka cararaya goobaha dagaalka hadday Jubbaland aadaan ciidanka Kenya qaxooti ahaan isku dhiibayaan hadday Puntland tagaan iyagoo 300 ku dhow ayaa 20 daqiiqo lagu soo afjaraya dagaal iyo xasan sheekh cirkii dhulka isku jiraan fanka lama rabo de booto iyo fan iyo hadal uun afka laga dirirayo ma xabad hadday noqoto dawladda xasan sheekh maxamuud fashil weeye dhinac kasta markaad ka eegto
wixii soo kordha isha ku hay warbaahinadayda qaybaha baraha bulshada si aad ula socotana pagekayga facebook balwan show follow gare youtube-kayga aftahan production youtube-yada kale ood barnaamijyadayda sidoo kale aad kala socotaan barnaamijkan mid lamid intaanu ku kulmi doonana waa cabdullaahi balwan oo idinle meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo